marka hore Soomaaliya Allah mahadle marka xigana waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta ay tahay bishu 26 bishii 8 2020 waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo maalmahan media dhex xaraaraya mid waxa weeye ninka commissionka midna waxa weeye nin burca ka hadlay oo yidhi waa hoyga aqoonta aan ku horeeyo commissioner wixiina dhan 29 sano ee dawladda inay dhisan tahay waxa dawladda la yiraahdo waxad wadaan dawlad caatifadaysan waxad wadaan doorasho caatifadaysan waxad wadaan dastuur caatifadaysan wixiina dhanba caatifad buu ku dhisan yahay ee wax xuduud ku baysgaraysan ma marka caatifadii naga socon maysa laba cishay soconi way dumi marka taa ogaada bisha 23keediina bishii 8aadna waxaad sheegteen inaad doorashada 9 bilood ku qaban doontaan oo tiraadeen waan register-gareyn doonaa waxa dhan baan ku dhamayn doonaa 9 bilood kolley intii meesha fadhideen ku arkanay hal qabiil bay ahayd ummadii kale kuma jirin taladana waxbay ku leedahay baan u maleeyaa iyada lama maamulo uun ummadda kale taasina waxay noo cadaynaysaa inaad ku heshiiseen afarta xaafadood Hargeysa ku leedihiin inaad doorasho ka qabsan doontaan marka afartiina xaafadood bayna ka qabsan doontaan ama Itoobiya ku darsada oo xarshin ku darsada iyo hawd ama Soomaali raaciye idinkayna jirtaa midna waxaan ka leeyahay ninka maayarka ah burcaad war aqoonta maaha mid annagu aynu iska sheegano aqoontu maaha mid annagu iska sheegano kownkan allaale wuxuuna ilaahayna dejay dhulkii diinta islaamku ka soo gashay orodoo soo arag malaha saylac maad arkina masaajidka qiblateenkee ku yaallay aqoontuna waa ta allah maaha tagaalka adigu aqoonta waxaad u haysataa tagaalkaad u haysataa isaad u hadlaysayna waan ku arkayay marka annaga aqoonaanad gaadhayn baad haysataa xeel dheer aan weligii naga tegayn waa ti islaamka burcana wax la diida maayo waa sayladii xoolaha Soomaal oo dhanna way og tahay wax aqooni meesha ma taalo waa aqoon ingiriiskeenu waxa taala waa waxa ingiriis qoran waxa taala ee systemkayagii 136 sano lagu soo baabiin ilaa iyo maanta taagannahay marka waxaan ku leeyahay intaanad hadin horta balooda dhulka taariikhda lagu akhristo tag waxaan u malaynayaa dadkiinu hadday ku qabsan waayaanna inay adoo kale yihiin un baan u wada haysanaa wadada aqoon loon adduunyada ogeyn oo waxba akhrisanay yihiin marka ninka aqoonta la ku dheeraan maayo waa inta midna waxaan rabaa inaan maanta Soomaalida u weydiiyo waxa jirta maama oo Muuse Bixi 2 balood oo Hargeysa oo ku haysto korkeeda maamada 2 balood waxa uu gaday inan yar oo dahabshiil ka shaqeysa oo marba in yar laga goosanaya bishii ninkaasaa madaxweyne la leeyahay waa ninkii islaanta 2 balood uga tagi lahaa wardayna cigaal wuxuu yidhi dawlad wax lagama gatay waxaagaa loo gadaa maama hadduu 2 balood ku siin waayo waxaan u abil garaynayaa Soomaali ar Soomaali islaanta $1 nin kastooba aan koodkeeda ugu rid guri waa u dhisiyay
maama iina soo sheegan koodkaaga anaa kuu bilaabaya haddii allah wuu dir raalli ka noqdo soomaaliya meel kastoo joogtaana waa soomaali wax kala go'ayaa ma jiro ilaahay soomaaliha isku keenaan leenahay waan salaamaya meel kastoo joogtaan